muqdisho gaar ahaan Elite Hotel waxa lagu qabtay munaasabada bandhiga ganacsiga yaryar iyo sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa Hana Academy ayaa soo qaban qaabisay sanadkii mar ayaa la qabtaa sanadkan waxa la soo bandhigay ganacsiga yaryar oo ay halabuurkooda lahaayeen qaar kamid ah dhalinyarada madashan ku sugneed waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada mas'uuliyiinta Hana iyo marti sharaf kale intaas kadib markii munaasabada la guda galay ugu horreyn waxa daafuray Maxamuud Axmed kana mid ah maamulka Hana Academy maanta inaan iskugu nimaado Muqdisho job fair oo sanadkii saddexaad aan ku qabanayno magaalada Muqdisho iyadoo lagu talagalay in la isku keeno dadka shaqaaleysiyaha ama shaqada bixiya iyo dadka shaqadoonka ah isku xir ama linkage ay u noqoto sida aan ogsoonahay shaqadu waxa waaye xaaladaha iyo baahiyada ka jira magaalada laga sheekayn maayo laakiin waxaan rabnaa inay bidhaamin ay u noqoto expectation-ka dhalinyarada iyo baahida jirta in macnaha si commitment loogaga jawaabo lagaga falceliyo waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay soo agaasintay oo ugu horeeyay macadka Hana Academy oo lahaa iyo dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyo dhammaan shirkadihii taabageliyay barnaamijkan suura geliyay fududeeyay sidoo kale dhankooda hadalka waxaa qaatay wasiir ku-xigeenka shaqada arrimaha bulshada iyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga kuwaas oo dhalinyaradu ku bogaadiyay inay sii wadaan fikradooda hal abuureed ay ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay ugu hindiseen dhalinyarada waxaa looga baahan yahay inay ayagana xoog saaraan sida ay ku baran lahaayeen xirfado oo sahal ka tahay inay si fudud shaqooyin u helayaan suurtagal ma aha in dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay wada shaqeeyaan xafiisyo waana waxsaan dhibaatada shaqo la'aanta ka jirto maanta wadanka tusaale ahaan wadanka waxaad u maleysaa in farsamada aad u yaraatay qof kasta wuxuu ku hanweyn yahay maanta inuu xafiis fariisto xafiis wadan ma hormariyo orintan ay sheegayaan sababta waxaan xasuustaa maalin meel aan wax ka maqlay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Margaret Thatcher waxay la kulantay CEO-da Sony markaas waxay weydiisay seen ku hormarin karaa wadankan haddaa rabtay inaad hormarisid waxaad mar kasta kalsooniga siistaa farsamo yaqaanka anagana waxaan nahay bulsho weyn oo shaqada maartay farsamada ka caawan maanta haddaa kaba toleysid waxaa lagu leeyahay ninkan waa kaba tol bini aadanka suuxii markuu hurdada ka soo kaco intuusan musqusha galin oo cadeeyo kabuu gashtaa farsamadaas wadankan waa ka jiray dhowr warshadood ayaa ka jiray maanta warshadaas waa wada xiran yihiin gabdho waxay wadaan baa mar walba meel gaadha insha Allah barnaamijkan waxaan u rajeynayaa khayr fara badan aqoonladii dhalinyarada ee daadaheynaysa waxaan maraynayaa khudbado dhaadheer iyo uguma soo talagelin laakiin waa u baarakeynaa Allah ha u barakeeyo inta waday qofka bini aadamka inaad adigu noolaato ma qurux badna iska noolaan dhaxnaa anagu qofka keligii wax cuna ee soo toosa ee caloosha keligii gashada ee maxaan ku rahaa $1 aan walaalkiina waxba ka siin iska noola la yiraahdaa qofku inuu noolaado in lala noolaada ka fiican Xuseen Axmed Geelle oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa Hana ayaa gabagabada munaasabada soo xiray waxaa farxad gelisay dhalinyartan qiimaha badan oo hal abuurka leh aqoon-yahanada leh oo dumar iyo gabdho iyo wiilal isugu jira iyo raggii soo qaban qaabiyay ay ka mid yihiin maxaan ku iraadaa Baadigoob khibrad Hana Academy ururka haweenka gabdhaha hal abuurka Soomaaliyeed ganacsiga e-commerce Somali Business Women Group iyo wasaaradihii nagala soo qayb galay maanta sida wasaaradda sportiga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashada iyo Chamber of Commerce rugta ganacsiga dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan filaynaa aan ka baryaynaa inuu noqdo bitawfiiq ay hirgasho ay fahmaan dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed sida shaqada loo abuuri lahaa iyo niidsankii iyo doodihii iyo khibradii tirada badneed ay isugu keenteen in laga faa'iideysto waxa intaas ii dheer runtii aniga laftigeyga dadkii Soomaaliyeed oo waxaan ka mid ahay waagii hore meeshan wax ku bartay oo waliba lacag la'aanta ku bartay isla markaasna nasiiyay trainingka ama internshipka waxaan ka baxay kulliyadda ganacsiga iyo farsamada macallimiinta polytechnic dii aan sheego sanadkii waxaa suurtagal in sanado badan la xisaabo laakiin ma qari karo Faadumo Cabduqaadir raadi TV-ga dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta